Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada barnaamijkeena oo aan kaga hadlayno waddanka Senegal. Senegal ama Jamhuuriyadda Senegal waa mid ka mid ah dalalka ugu caansan ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika. Waa dalka qaabila dalxiisayaal badan maadaama uu leeyahay xeeb iyo meelo mudan in la booqdo. Muuqaalkan waa mid si guud uga hadlaya dalka ay ka soo jeedaan Sadio Mane iyo fanaanka caalamiga ah ee Akon. Dalka Senegal waa dal dhaca galbeedka qaaradda Afrika, wuxuuna xad la leeyahay Mauritania, Mali, Guinea iyo Guinea-Bissau. Waxayna Senegal ku hareeraysan tahay dalka Gambia. Senegal waa dalka 88aad ee ugu dhulka weyn caalamka maadaama uu ku fadhiyo bad ka badan 196,000 oo kiiloomitir square. Dadka dalkan waxaa lagu qiyaasaa 15 milyan. 94 boqolkiiba dadka dalkan waa muslimiin, waxayna diinta Islaamka qarnigii 11aad ka soo gaartay dhanka Mauritania. Dhanka kale dadka reer Senegal boqolkiiba 57 waa kuwa wax akhrin kara waxna qori kara, sidaasi oo ay tahayna shaqo la'aantu waa boqolkiiba 48. Dakar waa caasimadda dalka oo noqotay 1960kii, waana magaalada ugu weyn ee dalka. Waa dalka kaliya dhaca galbeedka Afrika ee aan wax afgembi ah ka dhicin. Senegal waxaa lagu dhaariyay Adama Barrow oo ah madaxweynaha Gambia kadib markii uu diiday natiijada doorashada Yahya Jammeh oo xilka afgembi kula wareegay 1994. Waxaana Senegal lagu maxkamadeeyay kaligii taliyihii hore ee Hissène Habré oo ka arrimin jiray dalka Chad. Mr. Habré ayaana lagu eedeeyay inuu mas'uul ka ahaa dhimashada in ka badan 40,000 oo qof. Senegal waxaa laga helaa haro midab gooni ah sidata oo lagu magacaabo Pink Lake. Midabkeedana laguma bedelin kiimiko oo waa dabiici oo aan aadmi faragelin.